السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كيني قصولتي وعاشر كان waxaan kaga hadli doonaa sidee account receivable aanu sameeynaa inaan la wareegno deyn inoo maqnayd iyo vendor iyo waxyaabo la mid ah. Marka waxaan ku horeynaa wax loo yaqaan account receivable ka halkaas aan tagaynaa sad artaanba customer-ka ka si aaysa tabatana qof deyn inoo maqnaa ayuu bixiyay sana receive payment baan ka si aadnaa oo maaragtay oo ah yaani khusaysa deynta inoo maqnayd marka la bixinayo qaab kale loo wareegayo. Horta marka hore report kan aadinaa waxaan ku qoranaa account receivable dabatana waxaan ka aadinaa summary-ga ayaan ku dhufanaa waxa noo soo baxaysa cid allaaliya cid aan deyn ku lahayn ama wax loo yaqaano luqadda computer account-ka tan ku hadla account receivable dabatana marka doonayso hore u sii kala ogaato description waxyaabo la mid ah isagu bad gudaha u sii galaysa laakiin halka waxaad ku aragtaa suuqeynta wadarta guud ee account receivable ka inoo maqan iyo cid kasto aan ku lahayn oo loo yaqaano markay gaargaar yihiin subsidiary account baa loo yaqaana suuqeynta wadartooda goodna account receivable baa loo yaqaana dadna gudaha aad ku dhufanaysaa detailskii ku siinaya warbixinadii mid walba inuu wixii credit maaha wixii invoice aha wixii lacag bixisay wixii check aha maartay wixii bad check aha wax wala mid adigu wuxuu ku siinaya description-kii bilihii amount-kii xaddigii iyo waxyaabo la mid ah iyo cidii aad ku lahayd imika mid walba tusaalahan ci cali mara iyo waxyaabo la mid ah kuwaasi subsidiary ka dhigayn suuqeyntooda noqonaysa account receivable waa koona ku dhisan iyagu subsidiary account sida general journal ku uu jiro waxa dhan uu jiraan special journal dadana account receivable kiibeen marka toos ugu sii dhufato wuxuu ku sii geenayaa xitaa invoice-kii marka la jaray dabadana iskaga soo noqonaynayo hada doontana mid kaas ugu dhufan kartaayo dabadana si gudaha ku geenaya qofkaas maalintii date-kii invoice-ka aad u jartay maalintii aad wax kala qaateen inta aad ku leedahay hadii wax kala bixiyay iyo invoice-ka intii bread-kii ama latest-gii iyo waxyaabo la mid ah ayuu ku tusinaya oo details-kaas aad ka sii aaysa marka report-ka timaado adoonaysa customer balance sidaad ku sii tilmaamay account receivable-ka gudihiisa marka joogto marka imka si aan lacag u bixino xalay lacag la wareegno receive payment baan ku qoranaa si aan lacag la wareegno customer-kan aadana dadna receive payment baan ku dhufaana dabtana customer-ka lacagteena siinaya in lacagta kala ka gudoonino aad halka ka searching garanaysa lacagta aad siinayso iyo wax loo yaqaan invoice-ka imka tusaalahan lacagteena siinay waxaan ka soo qaadnaaba 5,000 baad ku qoraysaa ka bacdina gudaha aad u galaysaa dabadna waxaad sameynaysaa date-kana waa iska saxaysaa imika halka wuxuu markiiba date-kii soo qabtay intii qofkaas aan ku lahayn oo dhan ayuu amount-kii geliyay dabadna adaa ka sii dooranayo maaragtay odhanaya amount-ka halka amount-ka qoran ugu dambaysa oo 5,000 geli oo ka daayo intaas u bixinaya hadduu wixii wada bixinayana isaga si gareeyo TikTok baad u saaraysaa oo tamaarta TikTok baad u saaraysaa wixii marra TikTok ka qaadaysaa wixii baan searching gareyn marka waa receive payment customer payment ku qoran wax TikTok baad saar wad ka qaadi TikTok marka saarto marka wixii oo dhan bisu ka searching gareynaya hadhowna amount-ka intii imka tusaalahan 5,000 baa ayaad ku qoraysaa halka wax loo yaqaano invoice-kuna wuxuu leeyahay wax loo yaqaano voucher marka invoice-kana tusaalahan waxaad gelinaysaa hadba wuxuu ahaa date-kii waad gelinaysaa invoice-ka oo jirta invoice 1 invoice 2 invoice inaad falantaa receive inaad garanaysaa faan filaya date-kana si wacan baad saga saxaysaa account-ku hadhow ku dhacayana account-ku ku dhacaya lacagtaas cash on hand cash on bank ma waxyaabo la mid cash on hand buu ku dhacaya waa nidhiyo si toos u gacanta ku soo dhacaya waa account-ku ku dhacay lacagtaas markaas markaad sameeyso labada option kaasaad ku dhufanaysaa ka qorantahay save and close ka kale wuxuu qoranay save and new iyo meel kala samee imika markaan ku soo noqono report-kii markii aan aadnay customer balance summary waxaad ku dhufanaysaa marka gudaha u galo imika saalka waxaad ku aragtaan invoice-kii hore iyo payment la bixiyay invoice halka aynu ku qoraa invoice-kii maxaan bixinay payment-tii ku xigtay haddaad ku aragto report-ka labada waxay isku saaran ogow invoice-ku waa wixii deyn la inaga qaatay deyn nagu maqnaa payment-guna waa marka deyntii la bixiyay
labadaas sidaas ku kala duwan haday ka soo horbaxaan meelaha way kaaga soo horbaxayaan oo de waxa wacan mid walba inaad maaragtay wixii u gaar aad siisa u hayso u garanayso gudaha hadii aad u sii gashana halka ay ku qoran tahay imka halkaas waa intii guud totalkii subsidiarada suuqintoodii weeyay san marka horena ku tilmaamay halkaas sidaas horta sidaas weey marka tusaale ahaan fenderka qof nagideen nagu lahaa fenderkeena aynu tusaale ahaan isagoo lacag siina maxaan oranaynaa isaga marka ma reportkan ku noqonnaa dadna waxaan aadeynaa fender balance summary oo sidii kii oo kala ahaa customer balance summary ma dadna inta deyn la nagu leeyahay horta totalkeedii deynta inta la nagu leeyahay totalkeedii horta waa inta sadalka ku aragtaan subsidiaraan u leeyahay iminka tsara account receivable iyo account payable iyo inventory iyo kuwaas subsidiarada leh isugeyntooduna adoo account quray isugu imanayo account payable ama account receivable gudaha markaan u sii galay date-kii wax walba dhaceen gudaha u sii galaysa invoice-kii buu toos ku geeyay maalintii deynta laga qaatay bahalkii aad jartay invoice-kii aad jartay warqadii wixii aad jartay iminka tsara wakaas afarta subsidiar baa jira mid walba waa deyn in nagu lahayd gaara dabatana marka doonaysa inaad bixiso maaragtay aad iska bixiso qofkii iska siiso ayaad weygan maraysaa sidii tii weygeedii hore oo kala aan marnay marka waxaad ku fahanaysaa buy bills halkaas interbill oo marka deynta la qaadanayo halkaasna waa buy bill oo marka la bixinayo buy bill marka ku dhufato sidii kuwii hore kale baad horta dooranaysaa ninka wax siinayso inuu yahay marka searching dadna halkaana tigihii halka dambe maartay tigtiyareed baa la saaray way ka dambaysaa nin walba intiisi halkaas ay soo taalaayo hadii aad wada bixinayso iyo hadii aad bad bixinayso iyo hadii maartay wax yar ka bixinayso 100% TikTok umba halka dambe horta marka hore u soo saaraysa ka bacdina amountiga ugu dambeeya xadiga halka ugu dambeeya ayaad ka sii dooranaysaa ama wada bixinaysa marka waxa loo yaqaano vendor payable-ka TikTok umba u saaraysa TikTok marka u saartay marka inta uu searching gareeyay inta soo dhanba qofka lagu leeyahay wada bixi yaani lagu leeyahay wada bixi hadaa doontana wada bixin hadii kale aanad wada bixinayna barka imka halka ka soo qaad ba inta sa bixin sheytaban inta dadan bixinayna mid kalena doonto ku darasa deyntiisa iska bixin kartaa halkaana date baad ka hagaajinaysaa date-ku waxa lagu kala socdo date-ku waxaan la kala maarmayn halkaasna waxaad ku dhufanaysaa kaasad ku dhufanaysaa sidoo kale kana account-ku ku galayo cash on hand cash on bank kana kaawda sidoo kale ma daabacay hadhow halka misawa kaasare kiisa sare sigada guud galgalmayna labada juus oo qoonaya mid invoice imka daabacaysa mise ma daabacaysa tana waxa la save xalay bay maarta wad ku dhufanaysaa sagana TikTok dib u sii saaraysaa TikTok aad saaraysaa ما يلقى واحد كوري سانا والني انت فيس صحة سيساني قدام جاتنا waxaan nasa close mar kale ma sameeyay kulay may close balance dabatana wad dhaafaysayo loo yaqaano warbixintii report-kii aan ku soo noqonaa halka maxaad ku aragtaa halka ku aragtaa check payment marka waxa weeye marka horena markuu deynta inaga nagu maqan tahay bill baa loo yaqaana marka ma aragtay la bixiyana waa la bixiyay suuqeynta imika markuu ka soo noqdo oo report-kii toos u soo aado report-ka marka aado waxaad ka eegtaa dadna waxaad arkaysaa lacagtii rafaadkaaga iyo jabkaaga nin ahaan cidna ma kayr garayso ama cidna ma danayso adduunyada